Asalaamu calaykum. Soo dhowaada asxaabey. Maanta waxaa idin sharxi doonaa filim action iyo crime ka kooban oo soo baxay sannadii 2018 ciwaankiisuna yahay The Awakener. Haddaba daawo oo taxaddar. Bilowga filimka waxaynu aragnaa mudaaharaadyaal taagan dhismo dowladeed hortiisa. Waxay ku mudaaharaadayeen duq magaalada oo la yidhaahdo Sandro Correa, kaasoo lagu helay musuqmaasuq iyo xatooyo lacago dowladeed. dadku dhagaxyo ayay ku tuurayeen dhismaha oo maayarku wuxuu ku dhuntay miiska hoostiisa halkaasoo nin maaskaro xirnaa uu ku qabsaday muuqaalka qaybtiisa xigta waxaana la tusayaa rag ka tirsan ciidanka ka hortaga musuqmaasuqa DAE oo isdiyaarinaya isla markaas waxay aadeen dhismo uu nin kafee ku cabayay ninkaas wuxuu ahaa maayarka oo ah Sandro way xireen oo waxay geeyeen qolka su'aal weydiinta ee xaruntooda saraakiishu waxay ku faraxsanaayeen in saaxiibadooda Edo iyo Miguel ay soo qabteen maayarkii musuqmaasuqa badnaa qolka su'aalaha waxay u sheegeen inay ku hayaan cadeymo musuqmaasuq iyo lunsiga hantida shacabka maayarku wuxuu ku hanjabay inuu dili doono qof kasta oo isku daya inuu soo bandhigo musuqmaasuqiisa iyo sidoo kale dembiyadiisa xitaa wuxuu isku dayay inuu laaluusho saraakiisha si loo sii daayo muddo ka bacdi markii maayarka qada loo keenay ayaa waxaa halkaas yimid qareenkii u doodayay wuxuu ka warramayay xiriirka uu la leeyahay xeer ilaaliyaasha wuxuuna u caddeeyey in muddo gaaban gudaheed lagu sii dayn doono wuxuu u sheegay in laga yaabo in xabsi guri la geliyo inta lagu guda jiro baaritaankiisa dhan kale xarunta ciidanka DAE-da taliyahooda ayaa qabtay kulan yar oo uu ku sheegayay in caddeymaha la xiriira lunsiga miisaaniyadda caafimaadka ee maayar Correa uusan sax ahayn sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu gurigiisa aado oo xabsi guri la geliyo intaas kadib Miguel iyo saaxiibkiisa xafiiska ayay ka soo baxeen Miguel wuxuu aaday inantiisa wuxuu u keenay fanaanad gabadhu aad ayay u faraxsaneed oo wuxuu u xiray fanaanadda halka ay hooyadeeduna ay sawir ka qaadaysay intaa kadib Miguel taxi ayuu ku qaaday waxay ka soo degeen baabuurka kadib markii uu jaam galay inta u sii socdeen garoonka ayaa gabadhiisu ay heshay xabad aan la garanaynin meel ay ka timid waxay bilowday inay dhiig baxdo oo Miguel ayaa gabadhiisa ula cararay isbitaalka si loo daaweeyo markii ay isbitaalka gaareen dhakhaatiirta ayaa isla markiiba gabadhii Miguel u waday qaybta gargaarka degdega halkaasoo ay Miguel ka codsadeen inuu banaanka ku sugo Miguel meesha ayuu si dulqaad la'aan ah ku sugayay dabadeed gudaha ayuu galay wuxuu arkay bukaano badan oo halis ku sugan oona jiifay meel aan nidaamsanayn oo isbitaalka dhexdiisa ah aad ayuu uga naxay markuu arkay bukaanadan iyo xaaladan liidata ee isbitaalka ka jirta isla markaas wuxuu arkay gabadhiisa Alice oo aan nuuxsanaynin jiiftana qolka qaliinka hortiisa markuu dhakhtarku wax ka weydiiyey sababta ay gabadhiisa u geeni waayeen qolka qaliinka ayaa wuxuu sheegay in isbitaalku uusan lahayn qalab badan oo qaliin ah sidaas darteed bukaanada ayaa ku khasban inay waqtigooda sugaan kadib dhiigbax badan iyo daweyn la'aan ayaa garaaca wadnaha Alice uu si tartiib ah u istaagay oo waa ayna dhimatay muddo kadib Miguel xaaskiisii hore oo ah Alice hooyadeed ayaa waxay timid isbitaalka way naxday markay ogaatay in gabadheeda yari ay dhimatay muuqaalka qaybtiisa xigta maayarka ayaa damaanad helay oo waana laga sii daayay xabsiga shir saxaafadeed ayuu qabtay wuxuuna ku dhawaaqay inuu u tartamayo doorashada xilka madaxweynenimo wuxuu ballan qaaday inuu kordhin doono miisaaniyadda qaybta caafimaadka ee isbitaalada dadweynaha dhinaca kale Miguel wuxuu xasuusanayay gabadhiisa isagoo waddada ordaya wuxuu aaminsan yahay in geerida inantiisa ay sabab u ahayd tayaxumida isbitaalada Miguel wuxuu qabaa in gabadhiisa la badbaadin lahaa haddii ay waaxda caafimaadku heli lahaayeen miisaaniyadda iyo tashiilaadka ku filan isbitaaladooda intii uu ordayay ayaa wuxuu yimid dukaan waddada ku yaala wuxuuna arkay war ku saabsan in maayar Correa xabsiga laga sii daayay oona lagu waayay wax musuqmaasuq ah iyo lunsi lacageed Miguel aad ayuu uga carooday arrintan kadib wuxuu soo dhex maray dad badan oo mudaaharaadayay kuwaasoo hortaagnaa dhismo dowladeed oo caro darteed ayuu booliiska u weeraray biliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku soo tuuray markaas maaskaro ayuu xirtay sida aan ogsoonnahay isaga wuxuu ka tirsan yahay ciidamada sida gaarka u tababaran sidaas darteed wuxuu ka adkaaday biliis badan oo dhismaha ilaalinayay dhismaha ayuu fuulay oo gudaha ayuu galay wuxuu dilay mid ka mid ah ilaaladii maayarka oo wuxuu galay qolkii uu maayarku ku dhuumanayay feer ayuu ku daldalayay taasoo keentay inuu u dhinto maalintii xigtay Miguel wuxuu ku laabtay shaqada madaxa xafiiskan ayaa Miguel iyo xubnaha kale ee DAE-da ka codsaday inay baaritaan ku sameeyaan dadkii mudaaharaadka lagu soo qabtay wuxuu sheegay in kooxda baarayaashu ay ku guulaysteen inay soo qabtaan dhowr qof oo la tuhunsanaa inay yihiin maskaxdii mudaaharaadka ka dambeysay Miguel wuxuu yara aqoonsaday mid ka mid ah haweenkii la tuhmayay Miguel wuxuu naagtii ku wareystay qolkii su'aal weydiinta waxayna u sheegtay in Nina la yiraahdo oo ayna tahay programmer waxay naagtan sheegtay inay og tahay in Miguel uu yahay ninkii biliiska la dagaalamayay oo ayna ka dubtay muuqaal intii uu dagaal ku jiray wuxuu aaday qolka caddaynta oo wuxuu fiiriyey taleefankeeda waana uu rumaystay Miguel wuxuu ku khasbanaaday inuu naagtan iska fasaxo
habeenkii markii uu si fiican u daawaday muuqaalka iyo dhacdooyinkii ayaa Miguel wuxuu helay ciwaanka guriga Nina oo halkaas ayuu aaday. wuxuu arkay iyada oo jidka socota. Nina waxay tusisay laabtoobkeeda. waxay Miguel u ballan qaaday inay ka caawinayso inuu baaro miisaaniyadda lacagaha caafimaadka iyo tan isbitaalada ee uu Mayer ku lunsaday. Nina waxay jabsatay oo ay gashay laabtoobka gaarka ee Korea. Miguelna wuxuu helay xog muhiim ah oo ku saabsan dadkii ku lugta lahaa lunsiga lacagaha. waxay tusisay xogta siyaasiyiinta ku lugta leh musuqmaasuqan. Miguel ayaa markaas isdiyaariyey oo mid u beegsaday saraakiishii musuqmaasuqa badneed iyo siyaasiyiin kale oo mas'uul ka ahaa lunsiga lacagihii waaxda caafimaadka. Miguel ayaa dhammaantood dilay isagoo wata maaskaro. waxaa meel walba gaaray war ku saabsan dilalka isdabajooga ah ee siyaasiyiinta. intaa kadib Miguel wuxuu aaday Nina goobteeda shaqada, wuxuuna ka codsaday inay ogaato taabageliyaashii maalgelinayay ololihii mas'uuliyiinta musuqmaasuqa badnaa. Nina waa ay diiday, laakiin Miguel ayaa Nina u soo bandhigay inuu hooyadeeda oo xabsiga ku jirtay xukunka ka khafiifinayo. muddo kadib Nina waxay booqatay hooyadeeda, waxayna u sheegtay in xukunka laga khafiifinayo. hooyadu arrintaas ma rumaysan oo gabarteeda ayay ku sii qaylinaysay. muuqaalka qaybtiisa xiga, Nina waxay ogaatay in ninka siyaasiyiintaas musuqmaasuq badan taabageliya uu yahay Gomez. Nina waxay jabsatay kaamaradaha CCTV-ga ee dhismahan, halkaas oo uu Gomez u imaanayay inuu la kulmo wasiirad Regina. dhan kale xafiiskii DAE-da, Edu isagoo fiirfiirinaya fiilasha tuhmanayaasha la soo qabtay maalintii Mayer kala dilayay, ayaa wuxuu ka war helay in ninkii maaskarada xirnaa uu damacsan yahay inuu qaarijiyo wasiirad Marta Regina. Edu wuxuu wacay Miguel si uu arrintan u wargeliyo, laakiin waa uu haleeli waayey. kadib wuxuu baxay keligiis oo wuxuu u dhaqaaqay dhanka dhismihii wasiiradda. wuxuu meesha ku arkay ninkii maaskarada xirnaa. Edu ayaa ereynayay ninkaas, oona xabad ayuu la haleelay. Miguel wuxuu u tagay Nina si ay dhaawiciisa u daweyso. maalintii xigtay Miguel iyo Edu waxay soo bandhigeen warbixintooda ku saabsan in wasiirad Regina ay la shaqaysto Antero Gomez. Gomez ayaa ah shakhsiga maalgeliya ololaha mas'uuliyiintan musuqmaasuqa badan. Miguel iyo Edu waxay go'aansadeen inay baaritaan ku sameeyaan wasiirad Regina, laakiin taliyahooda ayaa diiday oona u sheegay inay joojiyaan baaritaanka ay wasiiradda ku hayaan. Miguel wuu ka xanaaqay go'aankan, kadibna wuxuu go'aansaday inuu Gomez gacantiisa ku dilo. muddo kadib wuxuu gaaray hoygii Gomez, kaasoo la cashaynayay saraakiil kale. wiilka Gomez ayaa isna halkaas joogay, kaasoo musharax madaxweyne ahaa oo wuxuuna la sheekaysanayay hooyadiisa. Gomez ayaa u tagay si uu wiilkiisa u dhiirigeliyo. si kastaba ahaatee, Miguel ayaa si bareer ah u toogtay wiilkii Gomez si ay tani cashar ugu noqoto oo uuna dambiyadiisa u qirto. laakiin Gomez ayaa geeridii wiilkiisa u isticmaalay fursad ah inay dadka ugu naxariistaan oo uuna isku soo sharaxo xilka madaxweynenimada. dhan kale waxaa jira nin aan la ogeyn oo baabuur saarnaa, kaasoo basaas khaas u ahaa Antero Gomez oona baarayay dilka wiilkiisa. magaciisu waa Sequeira oo Gomez ayaa si gaar ah ugu diray si uu u baaro dilka wiilka. ninkan ayaa aqoonsaday akhyaartii dilaaga u dhoweyd. waxa uu u tagay maamulaha Nina, taasoo saaxiib la ahayd dilaaga. aakhirkiina wuxuu dilay ninkaas. Nina waxay timid goobtii shaqadeeda, waxayna ogaatay in booskeedii la dilay. meeshii ayay ka cartay oo waxay u cartay dhanka Miguel. markii halkaas gaartay ayaa Sequeira iyo raggiisii ay sidoo kale soo daba kaceen. isla markiiba waxay weerar ku qaadeen goobtii uu Miguel ku dhuumanayay. Miguel isagoo xabadaha ka daboolaya ayuu Nina ka codsaday inay meesha ka cararto. muuqaalka qaybtiisa xigta, Miguel wuxuu gashaday maskaradiisa, wuxuuna bilaabay inuu laayo kuwii soo weeraray. intii uu la dagaalamayay mid ka mid ah raggii Sequeira ayaa Sequeira waxaa u suurta gashay inuu Nina afduubto. Miguel waxaa loo soo bandhigay heshiis uu Nina nolosheeda ku badbaadin karo, oo Sequeira ayaa Miguel ku amray inuu soo dilo musharax madaxweyne kale oo Julia Machado la yiraahdo. Miguel wuu aqbalay. muddo kadib booliisku waxay yimaadeen meeshii Miguel. Edu iyo kooxdiisu waxay ogaadeen in meeshan ay tahay meeshii uu ku dhuuman jiray ninkii maskarada xirnaa. Edu aad ayuu ula yaabay markuu gartay in ninkaas maskarada xiran uusan ahayn qof kale oo una yahay saaxiibkiisa qaaliga ee Miguel. markii ay taas ogaadeen ayaa waxay baareen goobtii oo waxayna ogaadeen inuu beegsan rabo Gomez. Edu iyo kooxdiisu waxay u yaaceen goobtii lagu qabanayay dooda musharaxiinta. halkaa Miguel wuxuu sidoo kale u jeestay inuu dilo Julia. markii uu goobta gaaray, Miguel wuxuu isku diyaarinayay inuu Julia dilo. Edu ayaa sidoo kale soo muuqday oo isla markiiba ninkan joojiyey. labadoodu waxaa dhex maray dagaal ba'an. Edu wuxuu Miguel u sheegay inuu joojiyo waxaan u wado, laakiin isagu ma uusan dhegaysan oo waa uu sii waday dagaalka. dhan kale Nina waxay la dagaalantay Sequeira, kaasoo iyada soo afduubtay, waxayna ku guulaystay in Sequeira ay disho. Miguel ayaa markii dambe loo xiray dilka saraakiisha musuqmaasuq badneed. Edu ayaa markaas soo waday Miguel xaaskiisii hore, isagoona ka rajeynayay inay ku qanciso inuu dagaalkan joojiyo. xaaskiisii hore ayaa u sheegtay inaysan gabadhooda u soo noqonaynin oo ayna tahay inuu dagaalkan joojiyo. muddo kadib gudaha qolka xabsiga, Miguel wuxuu ogaaday in Antero Gomez uu ku guulaystay doorashada.
nin ayaa Miguel u yimid si uu u baaro. Ninkan ayaa ka mid ahaa madaxdii Miguel ka saraysay oo Diaz ayaa la yidhaahdaa, wuxuuna isku dayay inuu Miguel dilo. laakiin Miguel waxaa u suurta gashay inuu iska celiyo oo uuna ninkan soo afjaro. Miguel wuxuu ka baxsaday xabsiga, wuxuuna soo qaatay hub iyo rasaas. wuxuu u jeestay xarunta baarlamaanka, halkaasoo Gomez iyo siyaasiyiintiisa ay u dabaaldegayeen guusha uu Gomez gaaray, kaas oo uu kaga adkaaday Julia. isagoo aan ka labalabayn ayaa Miguel wuxuu weeraray dhismihii baarlamaanka oo uuna dilay dhammaan raggii Gomez iyo asxaabtiisa. ugu dambayntii markii uu Gomez xafiiskiisa uu galay ayaa waxaa loo sheegay inuusan musuqmaasuqan ka hortegi karin, sababtoo ah dowladda oo dhan ayaa sidaas u shaqaysata. markaas Miguel ayaa Gomez madaxa ka togtay. markii uu dilay, Miguel waxaa hareereeyey oo qoryo ku qabtay raggii Gomez, laakiin Miguel wuxuu dejiyey qorshe kale oo wuxuu bam ku soo diyaariyey gaarigiisa. Miguel ayaa batoon ka taabtay oo bam ka qarxiyey. isla markiiba dhismihii ayaa qarxay oo dhulka la simmay, iyadoona Miguel uu gudaha ku jiray. maalintii xigtay markii ay samatabixiyaasha, booliiska iyo kooxda dambibaaristu ay goobtaas yimaadeen, ayaa waxay keliya heleen maaskaradii Miguel, laakiin ma aysan helin meydkiisa. filimka ayaa ku dhammaanaya iyadoo lagu tusayo muuqaalka ninkii maaskarada xirnaa oo isu diyaarinaya inuu bartilmaameed toogto, taasoo ku tusinaysa inuu Miguel weli nool yahay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. subscribe saar kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. furo gambaleelka oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. mahadsanid.